السلام عليكم أصحابتا kusoo dhawaada janalkeena maanta nadaafada jirto waa ujeediin tartaan qaanadaha iyo waxa dhan aan rabaa inaan nadiifiyo aan dhaqo saa ujeediin waa dhaqooyaan nadiif inaan ka dhigaan rabaa waxaa waaye isbuuci hal mar in gacanta la iska marsiiyo way fiican tahay haddii kale todo saqday kuu sii saacideysaa marka isla socod wanaagsan asxaabta waxaa waaye inaan dhaqdhaq laga soo siiyo waaye marka waa kaas asxaabay waa kaas nadiif ugu soo dhiga meel kasta oo ujeedin alaabta iyo wixii dhan meesha ay yaaleen hadeertaan marka waa kaas asxaabay hadda waxaan dhaqoyaa saxamankii iyo geedkii oo talaajada wixii dhan aan nadiif ka dhigan rabaa mar rabi inuu videoga niigu dheeraado marka saas darteed waxaan rabaa inaan nadaafadan yariista aan idinla wadaago nadiif ka soo dhigo waa kaas marka hadda baastadeena iyo cuntadeena meeshaan ku rarasaysaneenaa miqaanadeena waxayna oo dhan nadiif inuu yihiin waa kaas asaasaan nadiif uga soo dhigay soo rasaysta raashinkii qaybta kale oo furfurneedna qaybaha hoos oo kale ku rasayay inta xirxiran oo caadigana meeshaan ka soo rasaysta bariiskii iyo hoosaan geeyay hadda saliidii iyo wixii dhan iskortii baastada dheerta iyo meeshaan ku soo rasayay bas ujeediin waqas saxaabay caagtaasna ma aragtay raashinka afka ka furan oo kale oo bacaha kaaga leexlumayo kale caagtaas lagu shubtaa hadda baasta makaroni yar oo bac iyadana afka ka furneedaan meeshaas ku shubtay birtaasna waxaa birta ciyaalka casriyada aan ugu sameysto oo mal waxaan rabo ugu dubto inta galleeya ay ugu jirto ujeediin marka waxaa waaye haddii bacda lagu soo gado haaf laga isticmaalo kadib marka meel dhigtid cunug la daadinayo marka hooyo waxaa waaye iyada wax kala dadabarto hoosna waa kaas bakeeriyaasha iyo wixii oo dhan ku waxaysan intana waa kaas wixii oo dhan markaan ku soo nadiifsaday hoosna waa kaas wixii raashinka furfurnayo dhanaan galiyay marka waa kaas saxaabta isla socono hadoo ilaahay idmo meeshaan carfiskii iyo caleen shaahigii iyo wixii oo dhan iyo cusbadii meeshaas waxaa iigu jirta caleen oo heel leh haaf yar oo iiga dambeeya ku shubtay xagana waxaa iigu jira dhagayare iyo waxaasan ku shubtay intana waa kuwaas tarmuusmankii iyo waxaa waa saxaman aan nadiif ahayn geliya ayagana aan la isticmaaleynin istiraashooyina meeshaan ku soo rasaystay waayo istiraashooyinka waa loo baahan yahay daqiiqadii ugu suqoobayaan ugu dambeyntii waa kaas jikadii dhansaana ka soo dhigay nadiif kaas ka soo dhigay kaamiradana waxaan u boobsiinayo waxaan diidayaa inuu wax oo dhan maaragta waqtiga oo weyn ku bato marka asxaabta aan isla socono nadiifkaas ka soo dhigo ujeedin soo daqiiqa aan adii meel walba markaan soo tirtiro soo nadiifiyay aan kaal arag aan ka soo dhigay markaan ka soo dhigo ujeedin asxaabay meel kasta nadiif inay tahay kuraasta xataa hadeertaaniti waa wada laalaabay marba hadii inaan isticmaalno waayo waxay adiga hadda galab camal waa habeen waaye ciyaalka si kala xoog farsameynaya waxaa waaye hadii iko jikada lagu cunteena lagu dhaho xidhana lagu waxweena adduunka dhan lagu qasam faantiin tartiib hadhow tila kuraasta u dhigdhigaya miiskana bacaan ka xijinaasaan leegaaga sii wasaqeynin maanta dhanaan dhaqaayo dhulka dhan waa daalan ku dhaha saxaabta waa kaas ugu dambeyntii kaamiradan kor idinkaga soo wada qabtay wixii oo dhan nadiif waaye waa ujeedin kugu celiye marka hooyo sideedaba waxaa waaye hooyo shaqo maal marka waa kaas asxaabay istiraashooyinkiina meesha si ready nooga yihiin hada u baahno tartiibkaaga soo qabso waaye marka asxaabta isla soconahay channelkiina waaye idinkana waa inaad subscribe saartiin like share comment oo ujeedin aniga nadaafada inaan dhaqdhaq ka soo tuurayo wax walba aan sameynaa inaan idin la wadaagayo ujeedin fadlan hadaa ku cusub tahay subscribe iga hilmaamin asxaabta cusubna aad iyo aad idin soo dhaweynaa soo dhawaada please subscribe like share